kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena koobaad waa barnaamijkii ugu horeeyay maanta oo jimco aan idiin soo gudbinayno jimca mubaarak meel kastoo aad joogtaan taariikhdu waa 17 bisha 7 2026 barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa wixii ka dhacay bariga dhexe xalay saq dhexe ilaa saakay wararkii ugu dambeeyay iyo weeraradii la isku qaaday ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa laakiin marka hore intaynaan barnaamijkeena guda gelin waxaan idin xusuusinayaa maanta waxay ahayd jimco channelkeena qisooyinka nadaara laba waxaan soo gelinay qisadii cajiibka ahayd ee jimcaha maanta aan ugu talagalnay dadka qisooyinka jecel inay iyaguna halkaasi ay kala socon doonaan watahay waxaynu ku bilaabaynaa xalay maraykanka muxuu sameeyey ilaa saakay haddaba wararkii ugu dambeeyay ee laga qoray haddaanu ku horumarno telefishinka aljaziira wuxuu ciwaan uga dhigay leylatu saadisa ama habeenkii lixaad maraykanku waxay duqeeyeen buundooyin iiraan ay leedahay halka iiraan iyaduna ay duqaysay dalal ay ka mid yihiin baxrayn kuwait iyo qatar haddaba wararkii ugu dambeeyey oo warbixintu ay sheegayso waxay leedahay warbaahinta iiraan ayaa sheegtay saakay oo jimco ah in 7 qof inta la soo warariyay ay ku dhinteen weerarada maraykanka halka 9 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii maraykanku ay weerar ku qaadeen meel buunda ah oo la yiraahdo Kohistaan oo markaa ka tirsan gobolka la yiraahdo Hormuzgan haddaba dhanka kale kuwait iyo baxrayn iyo qatar iyaguna waxay sheegeen in weeraro ka yimid dhanka iiraan ay la tacaalayaan hadday tahay diyaarado droonisa iyo gantaalo iiraan ay ku riday saldhigyada maraykanka ee halkaas ciidanka iiraan ayaa sheegay inay iyaguna bartilmaameedsadeen baxrayn oo markaa ay ku weerareen diyaarado droonis ah iyagoo ka jawaabaya weerarada maraykanka uu ku soo qaaday buundooyinka iyo goobaha muhiimka ah ee adeega bulshada lagu qabto ee koonfurta iiraan haddaba waxaa la sheegay in baxrayn la weeraray goob isku xiriirisa isgaarsiinta satellite-ka iyo kuwa ciidanka maraykanka halkaas oo iiraaniyiintu ay daakum ka dhigeen wasaaradda arrimaha gudaha ee baxrayn ayaa sheegtay in siiriga digniinta ah laga maqlay meelo kala duwan warbixintaasu markaa waa warbixin soo koobaysa meelaha sida fiican la iskaga garaacay haddaba isla warbixin kale oo faahfaahinaysa waxa maraykanku khasaare uu u geystay saacadihii lasoo dhaafay iiraan haddaba aan idin tuso mar kale warbixinta sheekada lagu qoray haddaba goobaha maraykanka uu duqeeyey warbixinno lagu soo aruuriyey ayaa waxa ay sheegayaan inay ahaayeen koonfurta iiraan haddaba sida warbixinta lagu sheegay koonfurta iiraan ayay maraykanku duqeymo culus ka geysteen deegaanka la yidhaahdo Hormuzgan iyo Sistan iyo Boloshtan haddaba waxaa la sheegay in la bartilmaameedsanayay oo ciidanka maraykanku ay si toosa u bartilmaameedsadeen buundooyinka iyo halka ay tareenadu maraan markaa iyo sidoo kale eraboor ayay duqeeyeen waxaana la sheegay in ay bartilmaameedsadeen goobaha halbowlayaasha dhaqaalaha oo ay ka digtay iiraan haddii lasoo weeraro in meelo badan iyaguna ay dhibaato ka dhici doonto haddaba waxaa la sheegay in sidoo kale la weeraray goobo kale oo iyaguna muhiim ah oo dhammaantood ka tirsan goobaha halbowlayaasha marka iiraan hore waxay uga digtay waa tii Trump uu ku hanjabay meelaha muhiimkaan duqeynaya korontadii basaa dhiman hadda korontada ma duqeynin iiraan waxay tiri goobaha halbowlayaasha oo ay ugu horeyso korontada waddanka haddii la baabi'iyo iyo sidoo kale buundooyinka iyo meelaha tareenadu maraan iyo waa la eedi doonaa ay tiri marka iiraan marka korontadii lagama weerarin laakiin waxaa la weeraray meelihii kale buundooyinkii isku xirayay gobollada qaar waxaa la weeraray meelihii tareenada waxaa la weeraray eraboor goobahaasoo dhanaa la weeraray marka dharbaaxyooyinka iiraan ee laga filayo ayaa soo socdaa la leeyahay haddaba intaynaan marka sheekooyin kale u gelin telefishinka aljaziira ayaa calaamadiyey khariidad ka sameeyey
goobaha weerarka lagu qaaday. haddaba sidaa arkaysaan wariyuhu wuxuu tilmaamayaa meelaha gudguduudan oo la calaamadeeyey waa magaalooyinka la weeraray sarbiig iyo bandar cabaas iyo qasham iyo bandar khumuur iyo kohristaan iyo meelahaasoo dhan oo calaamada lagu sameeyey guduudka ah waxaa leeyahay waa meelaha maraykanku uu duqeeyey. inta badan marka meelahaas sida hadda aad arkaysaan oo kaamirada marka lagu soo dhaweeyo khariidada 4 ilaa 5 meelood waxay ku dhow yihiin meesha la yiraahdo marinbiyoodka Hormuz oo dhanka badda ayay u dhow yihiin, halka magaalada kale ee gudaha ku jirta ee la yiraahdo Iran Shahar oo iyaduna meelaha guduudan ee la weeraray kamida. marka waxaa la weeraray ilaa 6 goobood sida hadda khariidada telefishinka Al Jazeera uu ku muujinayo oo uu leeyahay weeraradaas ayaa dhacay saacadihii la soo dhaafay. marka inta badan marka sida khariidada aanu ka arkaynay inta guduudka laga dhigay 5 magaalo waxay ku dhow yihiin dhanka badda ku soo dhawaayeen waa arkiiseen xeebta, halka magaalo kale ay gudaha ku jirtay. marka khasaaraha marka habeenka ka dambeeya weerarada maraykanku way sii cuslaanayaan la leeyahay. haddaba marka aan idin tuso koor dhaweyd waxa iyana warbixin qoray telefishinka Ruushka ee la yiraahdo RT wuxuu leeyahay هجوم إيراني weeraro cusub ayay Iiraan ku qaaday hadeer Kuwait iyo Bahrain iyo Qatar. difaacyada hawada ayaa hadda waxay la dagaalayaan sawaariiq iyo drones ka yimid dhanka Iiraan. haddaba dawladaha Kuwait iyo Bahrain iyo Qatar waxay saakay aroortii oo jimcayd ilaa hadda ay la tacaalayaan weerarada Iiraan oo markaa sida roobka ugu socda saldhigyada Maraykanka uu ku leeyahay halkaas oo la sheegay in khatar xoog leh ay markaa ka jirto. marka maxay leeyihiin Kuwait iyo Bahrain iyo Qatar dadkooda waxay leeyihiin guriyihiina ku jira ha soo bixinina, xaalku ma fiicna maanta. Iiraan oo buundooyinkeedii la burburiyey oo maaragtay meelihii tareenada laga burburiyey waa wareersan tahay, waa xanaaqsan tahay, waa weeraxsan tahay, macnaha yeeshan waxay gaarsiinin. haddaba war degdega oo goordhow soo dhacay isaguna wuxuu sheegayaa dawladda Qatar ayaa si rasmi ah u sheegtay in dhaawac uu soo gaaray wiil yar oo la sheegay in uu ku dhaawacmay firirka qaraxyada ka dhacayay weerarada Iiraan. wasaaradda arrimaha gudaha ee Qatar ayaa goordhow soo saartay waxay leedahay jihaadka dhinaca amniga ama hay'adaha dhanka amniga ayaa waxay sheegeen in markaa fir uu saameyn ku yeeshay dadka halkaas waxaana la sheegay in wiilka yarka uu ku dhaawacmay. dawladdu waxay ugu baaqaysaa dadka qadariyiinta ah in ay xaaladda amni ay aad u adag tahay oo guryahooda ay ku jiraan. Kuwait iyaduna sidaas ay leedahay dadku waa inay taxdiir amniya la sameeyay digniino amni qof walba meeshiisa ku jiro. Bahrain sidoo kale waxa soo kale heegan ku jira oo iyana cabsi wadnaha farta ku haya Israa'iil, waxa ku haya Imaaraadka, kulligood halka waxa ka jira la leeyahay cabsi xoog la ka jirta. maba la isgaarinay ku leeyahay Iiraan waxayba taagan tahay waxaan waaba quraac way taageen maba la isgaarin. jawaabta aan ka bixinayno jusuur ama maaragtay buundooyinkana laga dumiyay way dhimantay leeyahay. marka hawshaasu marka halkaas ay maraysaa. dhanka kale Maraykanka waray soo saareen waxay yiraahdeen ciidamadeena badda waxa ay dusha ka fuuleen markab loo malaynayo inuu Iiraan u socday oo uu jabinayay xayiraad si markaa baaritaan loogu sameeyo. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay ciidamada Maraykanka waxay sheegeen inay dusha ka fuuleen markab la sheegay inuu ku sugnaa meesha la yiraahdo Khaliij Oman. haddaba ciidamada Maraykanka ayaa sheegay in ciidankooda ay galinkii dambe ee shalay dusha ka fuuleen markabkaasi waxaana la sheegay inay markaa ka baarayaan inuu jabinayay cunaqabataynta cusub ee la saaray dekedaha Iiraan oo maraakiibta aadaysa iyo kuwa ka imaanaysaba la saaray. haddaba taliska dhexe ciidamada Maraykanka ayaa cadeeyay in ay markaasi xubno ka tirsan ciidamadooda badda Maraykanka ee Mariniska ay dusha ka fuuleen markabkaas oo ay baaritaan ku hayaan oo markaa ay baaritaan ku wadaan. marka wararkaasu marka
waxay ahaayeen kuwii ugu dambeeyey ee iska soo daba dhacay. Haddaba marka wararkii ugu dambeeyey sheekadan iyo halka ay marayso ayaynu markan idinla wadaagaynaa. haddaba war degdega oo hadda soo dhacay wuxuu leeyahay ascaarta shidaalka adduunka cirka ayay mar kale gashay. haddaba waxaana la sheegay shirkadaha diyaaradaha Yurub inay qarka u saaran yihiin inay falaadyo badan kansalaan oo ay joojiyaan kadib markii la sheegay in sicirka shidaalka uu hawada galay oo uu aad u qaaliyoobay saacadihii la soo dhaafay kadib markii xiisadu ay cirka gashay. dhanka kale war cusub oo isna goordhow soo baxay ayaa wuxuu sheegayaa in dowladaha Qatar iyo Bahrain iyo Kuwait ay wali heegan ku jiraan oo ay la tacaalayaan diyaarada droonisa. telefishinka Iran ayaa isaguna goordhow sheegay in Mareykanka ay meelaha ay weerareen ay tahay 5 buundo oo ku yaala gobolka leeyahay Hormuzgan oo markaa ay sheegeen in khasaare uu halkaa soo gaaray oo khasaare weyn uu soo gaaray. dhanka kale waxaa la sheegayaa in sida ay ku warantay wakaalada Faris qaraxyo laga maqlay magaalada Iraado Tashabhar oo aan la garanayn ilaa hadda waxa ay yihiin. marka xaalku waa ujeedaan waa la iska winayaa waa la iska raacayaa. Iran waxay ka winaysaa iyaduna waa la ka winayaa meesha nagtaa la isku hayaa waa la isbaabiinayaa. shidaalkii hawadu galay diyaaradihii Yurub waxaa leeyahay falaadyo badan inay joojiyaan sicirka inuu qaaliyoobo wax badan adduunkii oo dhan markaas hadda waa la yaaban yahay. dagaalkii qoto ku weynaaday tartiib ayuu ku sii weynaanayaa. awal meelo yaryar iyo uu ku bilowday hadda waxaa la maraa in dekadihii buundooyinkii wixii la iska baabi'iyo. marka Iran kule iyaduna way maqan tahay oo waa tii shalay aan soo gudbinay Xuutigii iyadu inay markaa ku ballameen in Mareykanka isaguna dhabarka laga soo jibiyo oo dhanka Babal Mandab iyaduna waxaa laga baqayaa saacadaha soo socda inay Xuutigu halka dagaal ka bilaabaan. haddaba xaalku cirkaasuu marayaa sheekaduna way qasan tahay wixii wararay soo kordha waanu idinla socodsiin doonaa. waxaan mar kale idin xusuusinaynaa maanta waa Jimca waxaan idin leeyahay Jimca mubaarak. channelkeena YouTube-ka qisooyinka Nadaara 2 qiso cusub dadka qisooyinka jecel halkaas ay kala socon doonaan. inta aan mar kale kulmayno nabadgelyo.